ku meesho mugdigii siraado ما شاء الله ويه مدحوينه نولو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هالسيهين انت كسو قيب قشبة آد بانو السلام يا وحان ربا مركا تحير oo ku saabsan madaxda in loo mahad cesho ama dadku ay isku tanaasulaan oo iscafiyaan madaxdana si gaar ah loogu mahad cesho wixii macquulana way ogtahay oo ayada ogay aan macnaheedu saayahay oo aan wax kale xambaarsanayn marka awalan mahad ilaah baa iskale meel la joogaba asaga makhluuq aan irsaqa maalin iyo leyl asaga muctaad loo yahoon ciidu ka maarmayn asaga mulkiga qaybiyo qaarba meel dhigo mawjuudna weeyo ma jiro meel moog yahay maanta adduuniya baro mawdka dabadiisa asaga miceen laga rabaa labada meelood miisaanka aakhiro janna laga malaystaa waxaana laga maleeyaa abwaan miriye suugaane murtigabay haddaad leedahay oo maali kugu beero meelaha la dhigin baa jiriyo goob mamnuuc ka ah marka hore cod miisaaman baa laga mireeyaa mabda aad ka leedahay inaad muujisaa wacan goortii macnuhu soo baxo buu miro dhal yeeshaayo mid xumaato la iskama dhihiyo waxaan macaanayn tixdii meesha loo soo xulay baan meerinahayay mudane iyo murwiya macallin iyo madaxda deegaanka محبية سلام يا أيضا شرف كما موصن كل الملكية ما صدق ومعانتها ما هذا الكاغا والو معان شايودتكو غعان ممريال يري مeel ka dheer madax wax kastana ma jira laga hago iyo maamul baawado arintii mijaha laga galaaway murgacatayo maroor kama dhamaato iyo inay meel kala lootaa haday madaxdu ku fiican tahay waa la mahadshaayo cafis baana loo muujiyaa meel la joogaba oo manfacna laguma eediyo wixii ka maqnaan jiray awashadii macquulii ayadaan maragu baahneen waqtiga muraayada hadaan la ismaldaahayna wixii tabashan mudan waa kale meeris noo helin madaxweyne daacada ayaan maanta leenahay mas'uulkii xaqiisii gutay oo muuqdaba kacay oo madaxweyne noolow ayaa meel kasta u taal marxaladii la soo maray anagoo mayra ugu laaban ayay muddo maray waa nooc marxaladii timaadaba waxba laga macaashay meeshuu marahayo baa kacaan lagala miisaayo in gadaal wax loo milixsadaba kuba macaanayne halgankii la soo maray waa kaamil dharkiisi mar haddaan midownay oo shacbigu meel u wada jeedo oo aan muwaafaqad helnay iyo maamul iyo dawlad oo ruux mucaarada bulshada lagu maleynaynin wax mudnaanta koobaad iska leh madaxda weeyaan oo waageed magool iyo naqal oo mira ka muuqdaan oo makasta ciyaalka harsada maalin iyo leey haddaan madaxdu taageero helin muuqan maayaan si kastoy haddaan madaxdu taageero helin muuqan maayaan oo si kastoy wax u soo maareeyaan meel unbaa maqan shacabkooda meel mariyay oo magaca weyn saaray ayaguna waxay mudan yihiin مقدس ويانا معنيه وجدده فهمه موجه فعل كذا أضان على ما صلح هدي أن كدره على كموقي سمدر يهلا عميجن بيرمج عليه الروح حركة وكم هالشيء وجد مرسالة وموش سجيا له موسكو بحيد جيرته روحنا مرهينين روحي أكتر مرة ومليلين مقال كدوق اللي عندها وهم عنتهاي beertaas soo meeriyo magaca si dheer la calankeena muuqiisa waa lagu mataalaa madar yeelaa miigan oo dunida maasheeyay marag iyo maqshilba soo maro meel kastaba meelay macmacaan ku soo saaray baa lagu masleeyaa waxyaalaha muhiimka anoon meesha wada keenin maskax lagu ma soo qaadi karo saan malaysnaayo mid kamid ah hadaan soo qabto oo ay madaxdu soo saaray dib u curashadaas muuqatiyo maamul qarameedku waa shay muhiim ah oo bulshada meel fog kaga yaal waa ismaamul aan leenahay madax banaanaan musuqmaasuqii baa ka haray
micida weynaade wax kastoo maroorsama ra'yaa lagu muquunshaayo migistana ma haysto sharciga waa mid noo siman ummadaas midowday iyo sacbigaas meesha wada aaday kuwa hawdka meeraha jiro maqalna waagaan oo inta madaxa adag iyo u baanmaara loo helin waa niman sharciga madaniga mooday qaab kale oo waa dad hawd ku miirmay oo ugaar lagu matalayo waa niman majarihii ka dhumay maamulka ahaayo maskax baadiyaa saaran oo meel kaleeta waxba kama maqnaadeen hadday nala midoobaan oo waxay mala awaasheen waxaan lagu macaashayne maslaxadooda ee bowtus way maray hawaaween suldaanka beesha suldaan maxamed axmed faarax xaleef سلطان فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بإرادته وخلق الخلق بمشيئته واستوى على العرش كما يليق بجلاله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. marka hore iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waxaan salaan soo jeedinayaa iyo mahad celinba mas'uuliyiinta xubno kasta ku jiraan hadday odayaalka tahay hadday culumaa diinka tahay hadday hay'adaha sharciga tahay hadday ururka dhalinyarada tahay oo runtii ayadoo ururka dhalinyaradu uu hormood u yahay xafladan sida hagaagsan oo aan la tasawur karin soo agaasimay baan soo jeedinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan ilaah baa mahad leh naftayda khaadi'ada ee gafka badan iyo naftiinaba waxaan soo jeedinayaa ilaahay taqwadiisaan soo jeedinayaa ilaahaynu ka cabsano mar haddaynu nahay dad muslimiin oo isu yimid magacayguna magac isim yahay hadde waxaa muhiim ah wixii ilaahay inoo ka raali noqonayana inaan ka hadlo wixii maslaxadda ummadda ku jiro dhan wixii aan ka gaaraan ka hadlo kulley intii fasaxadaydu noqoto insha Allah taala waxaan rabaa oo kale inaan halkaan salaan iyo hambalyo iyo tahniyad uga diro xukuumadda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxda kale sida madaxweyne ku xigeenada jeedinaya mahad celin ballaaran kitaabku wuxuu leeyahay anagu dad muslimiin aan nahay waxay noqonaysaa wax kasta oo qaacida aan xujaysanayno inaan ku dhisno shariicada islaamka noqonaysaa iyo dhaqankeena asaguna muqaddaska oo hidaha ah waxaan rabaa inaan sheego inay mudan yihiin in la mahadiyo nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah macnaheedu waxa weeyaan qofka aanu mahad celin bani aadamka cidii mutaysatay ilaaha abuureen uma mahad celiyo waa mahadsantihiin waxaad qabateen baa muuqda Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda waa su'aal madoone ayadoo laga yaabo hadda qabalaha caliyaaladu aan joogo iyo meelaha kale oo aadka uga ah koorayaasha oo ah markii la fiiriyo taliska xukuumadda caasimadda markii la fiiriyo ayadoo laga yaabo tabasho badan inay ka jiro haddana waxaan ognahay wax badan oo wax qabad ah oo horumar ah oo la sameeyay ayadana tanna waxaan u aragnaa mar haddii ay nala joogo mas'uul sare oo ay soo diray xukuumaddii dawlad deegaanku ka socda xafiiskii madaxweynaha loo soo diray ummadda si daqaa'iqa inuu u soo ogaado waxa ay ku nooshahay waxa ka maqan iyo waxa ay haysato mar haddii mas'uulka la soo diray oo caliyana nala joogo xafladda